anigoo waxaa daawanayay Kenya carruur dhalinyaro Soomaaliya waa kii lagu dili jiray maalintaas waxaa layga horreeyay moogtahay qayla dhawaaway anigoo markii hotel Shamo la qarxiyay hees ii diyaar tahay bay ayay iga horreeyeen waana ku hambaliyay waana nooga haray moogtahay marka hees fiican oo xaaladda ku habboon way soo saareen marka waxa dhiniyo waxa oran lahayd waa la yiri waa la hadlaan looma hadlay rag baa yiri ka haraadii Solomudka maalmaha kamid wallahi anoo daawanaya CNN-ta nacam ciil iyo caraaq marna isli dhexdeeda la oran jiray nin Soomaaliya bas isku qarxiyay maxay deen dukaanadii Soomaalidu lahaayeen wax loo daadin jiray buuq la jiray CNN-ta anoo daawanaya wallahi alcadiim waxaan ku leeyahay dhiig boqol tagay waxa kale oo iyaduna ay raacday habeenkii ku horreeyay oon daawanayay internet-kan ka arkay gabadh Soomaaliyeed oo South Africa lagu faraxumeeyay ayadoo waliba uur leh oo ku dhimatay exactly marka waxaan hees baan hadda waa la tumay inaan soo saaro baxday wuxuu ka hadlayaa warta ninka Soomaaliga horta huwi Soomaaliga ka hadlayaa annagu maxaa nahay horta dad la sii jirjiro la soo jirjiranahay horta marka wuxuu leeyahay hay'ankiyo geediga waqtiga horaya taariikhdu wadiyaha raaciniyo dirarisi haya hareeraha ummadaha kasiga odanka iidina haybtiya tirada markaan uguga hooseynay mayhan ciidine waa kuwi shalay dhamiina hoosugay halkay LSD ku taaliyo jirinkii mooyaane halii aan watan ka ahaa lagu hagaagaynin xanada ruuxdooda quraybaana libinta soo hooyay marka inta hore wuxuu ka hadlayaa annagoo 2 milyan Soomaalidu ay tahay qarniyadii hore malaha 2 milyan half ay iska tahay ay tiradoodu yar tahay ayaa waxay noqdeen ummadda ugu dhulka weyn la geeska Afrika ummadda caalamka laga hadlo waa ilaa ma Kenya dhexdeeda ilaa ma Ethiopia ilaa ma Djibouti ilaa ma Somaliland ilaa ma Puntland ilaa waa geeska isku soo wareega inta leh marka wuxuu ka hadlayaa xilligaaba miyaa laba hadlayna maanta maxaa dhacay way moogtahay waxa ku jirtay ereyadon ka xasuustaa haladay garaki ahaa biya maanta hanfigu leefay saxaraha ooniyo haraad heeduuga gooday maxaa yaman hablihini horshida abooda wuxuu ka hadlayaa ilaa iyo hablaha ku dhibaatoonaya ilaa ma South Africa waxaan ku leeyahay waa hees aad ballaaran